waddanka Denmark ayaa soo saaray digniino culus oo dhanka amniga ah kuwa oo ku wajahan dalkiisa kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay si aad u dulhehaabayeen diyaaradaha droniska ee aan duuliyaha lahayn kuwa oo si joogto ah u dulhehaabayay garoomo kala duwan oo diyaaradeed oo dalkaasi ku yaalo oo ugu weyn yahay midka caasimadda Copenhagen. Si taalamida ayaa diyaaradahan waxaa lagu arkay xeryaha ciidamada waddankaasi iyaga oo dulhehaabayo. Waxa uuna maanta wasiirka cadaaladda waddanka Denmark Peter Hummelgaard uu sheegay in ay ka soo saari doonto dowladda sharciyo cusub oo adag kuwa oo looga hortagayo diyaaradahan aan duuliyaha wadan. Waxa uuna intaa ku daray in ay ka soo saari doonaan sharciyo adag iyo xeerar adag kuwa oo looga hortagayo diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo markii hore caadi ka ahayd in dadweynaha isticmaali karaan oo ay xitaa filimada iyo fiidiyoyada ku duuban karaan iyaga oo adeegsanayo diyaaradahan aan duuliyaha wadan. Hayeeshee hadda oo ay sheegeen in ay soo wajahda dalkaasi khatar amni oo hakad gelisay qaar badan oo ka mid ah garoomada diyaaradaha dalkaas, sidoo kalena lagu dul arkay xeryaha ciidamada, ayuu sheegay wasiirka in ay ka soo saari doonaan sharci saamaxayo in la soo rido diyaaradahaas meel alla meeshii lagu arko waddanka Denmark. Wasiirka gaashaandhigga dalka Denmark Tolis Lunde ayaa isaguna sheegay in aysan hadda jirin khatar ciidan oo dagaal oo ku soo fool leh dalka Denmark, ha yeeshee ay jirto ka hortag iyo amniga oo khalkhal la gelinayo maadaama diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee aan la ogeyn halka ay ka yimaadeen ay tahay kuwa khatar ku ah amniga iyo xasiloonida dalka Denmark. Waxa uuna intaa ku daray in ay hakiyeen duulimaadyo badan iyo shaqo badan oo ka socotay qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha dalkaasi Denmark. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Denmark Michael Hildegard ayaa isaguna sheegay in aysan soo ridin diyaaradahan markii ay ku dul arkeen xeryo ka mid ah xeryaha ciidamadooda. Waxa uuna sheegay in taasi ay u sababeynayaan in ay ka baqeen in diyaaradani ay xambaarsan tahay bambooyin iyo waxyaabo qarxi kara kuwa oo ay haddii ay ku soo ridaan xerada sababi karto dhibaatooyin ka weyn inta la filayay. Denmark ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa hakad galaya garoomada diyaaradaheeda iyadoo khalkhal amni ay ku furayeen diyaaradahan aan duuliyaha lahayn. Si taalamida ayaa magaalada Oslo garoonkeeda Gardermoen ee caasimadda waddanka Norway ayaa isaguna saacado badan hakad waxa uu ugu jiray diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo lagu arkay iyaga oo dulhehaabayo hareeraha iyo garoonka dushiisa ee Gardermoen. Arrintan ayaa khalkhal badan oo dhanka amniga ah waxa ay ku abuuraysaa wadamada Scandinavian-ka oo ahaa kuwa ugu amniga iyo xasiloonida badan marka loo eego wadamada kale ee Yurub. Halka wararka kuwooda ugu doorkaroon ay idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.